waxa weeye waxaan la qaybsanaynaa dareenka ciidanka halka fadhiya ay maalin dheeli la taagan bagcadaas cad qabowga iyo kulaylka ayaan rabnaa inaan la qaadano dareenkaas la kala qayb qaadano. xubno ka socday madasha nabad iyo horumarinta gobolka Mudug ayaa agabta kulaha ku wareejiyay ciidanka xasilinta gobolka Mudug. agabkan lagu wareejiyay ciidanka xasilinta ayaa isugu jiray bustayaal, saliyaal, biyo iyo alaabo loogu talagalay dayactirka saldhigga Shabeelle ee magaalada Gaalkacyo oo fadhi u ah ciidanka xasilinta gobolka Mudug. xubno ka tirsan madasha oo halkaasi ka hadlay ayaa ciidanka uga mahad celiyay kuna dhiirigeliyay hawsha adag ee haraya habeen u hayaan bulshooyinka gobolka Mudug. taliye iyo dhammaan saraakiisha kale oo halkan ku sugan saakay waxaan kugu nimid oo ujeedka kulankeenan oo ahaa aan saldhigga Shabeelle u soo booqanay. marka koobaad inaan shaqada ay booliska isku dhafka gobolka Mudug bulshada gobolka Mudug iyo Gaalkacyo ay u hayaan inaan kaga mahad celino anagoo matalayna bulshada gobolka Mudug qaybaheeda kala duwan. runtii ciidankani kaalinta ay ka qaateen nabadgelyada gobolka Mudug iyo gaar ahaan Gaalkacyo si dhow baan uga la soconaa. ciidankan waxa la aasaasay 2017 anagana ka dhalinyar ahaan waxaan ahayn dhaqdhaqaaq xilligaas asaasmay maadaama magaaladu xaalad adag ay ku jirtay iskoodna iskugu taagay inay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo sidii loo walaalayn lahaa loo heshiisiin lahaa bulshada gobolka Mudug. tani intaas adeeg iyo shaqo isla wadnay waxaan xasuustaa shaqada aan soo bilownay September 2017 oo halkaan sidaas oo kale aan adeegyo ay u baahnayeen ciidamada aan keenay. tani markaasna wada shaqeynay maantana waxaan kugu nimid in aan mahad celino kow marka labaadna inaan xog waraysi maalinta la yeelanay baahiyo yar oo fudud bulshada ay ku filan tahay iyo baahiyo u baahan dawladaha labada maalmood ee Galmudug iyo Puntland oo ciidamadan asaasay in loo laabto ayaa ciidamada xogti ka waraysanay baahida degdeg ahayd oo ahayd ciidamada saliyaashii iyo hogi ay weyn lahaayeen iyo dayactirka ka socda saldhigga inaan ka qayb qaadano ayaan maanta u nimid. qaybo kalena wali waa ku maqanahay waa bilow insha Allah taala sida bulshada ugu adeegaysiin baanooni ugu adeegnaa waan idin garab taagana insha Allah inta shaqeynaysiin. aad iyo aad baa mahadsantihiin maanta waxaan soo gaarsiinay 100 buste oo aan ugu talagalnay ciidanka sidoo kale saliyaashaas waaweynka 25 xaba safitooyinkan lagu talagalay dayactirka meesha ka socda oo qayb qaadano. sidoo kale waxaan insha Allah taala sidaan ballan qaadnay ka jawaabi doonaa kanjaalka oo ay wax gaareen iyo dayactirka la socda inaan qaybteeda ka qaadano. bulshada gobolka Mudug iyo ganacsatada iyo labada maamulna waxaan gaarsiin doonaa baahiyaha waaweyn oo ay tahay inay ka jawaabaan qof walba heerka mas'uuliyadda ay ka saaran tahay. labada maamulna way ku mahadsan yihiin asaastaanka ciidamada asaaseen bulshada gobolka Mudug oo jirtana way uga mahad celinaysaa. insha Allah taala waxaan rajeynayaa baahiyaha ay qabaan waxay dawladda dhankeeda xigay in dawladdu ka soo baxdo anaguna ka shacab ahaan ciidanka hadaan shacabka la shaqeynayn oo aan bulshadu la jirin ee booliska ma shaqeyn kareen waxaan nahay garbihiini. saaka waxaan ku sugannahay saldhigga ciidamada booliska isku dhafka ah Puntland iyo Galmudug ee ka howlgala magaalada Gaalkacyo. annagoo isugu jirna bahdii nabadda madasha nabadda isdhexgalka dhalinyarada gobolka qaybaheeda kala duwan ayaan waxaanu saakay ku soo booqanay ciidanka taliskoodii. runtii waxaan ugu nimid marka koowaad inaynu dhiirigelino ugana mahad celino shaqada wanaagsan ee nafurnimada ay u hayaan dadkooda iyo deegaankooda. marka labaadna wixii baahi ah saldhigga iyo wixii annagu karaankeena aan ka qaban karno inaynu la aragno isla markaasna aanu ku saacidno wixii aanu qaban karno. saaka halkan waxaanu keennay waxoogaa oo maaragtay bustayaal ah ciidanka u dhaxanta ay ka wadaan iyo bundad xasigiye ah oo ay u isticmaali doonaan ciidanku ay isticmaali doonaan iyo biyihii iyo waxyaalo kale la isticmaali lahaa. sidoo kale waxaan marweyn taliyaasha ciidanka sharafta halkan jooga waa idin kaga mahad celinaynaa shaqada wanaagsan ee bulshada u haysaan. waxaan rajeynaynaa insha Allah taala in aad ka shaqeysaan xasiloonida iyo nabadda iyo horumarka gobolkaani khaasatan magaalada Gaalkacyo oo ah headquarterkii ama caasimadii gobolkan. in badan waa gobolkan dagaal ka dhaceen waan ogsoonahay waana garanaynaa shaqadii aad ku aadanaydeen iyo sidii aad uga qayb qaadateen falal badan oo burcadnimo iyo kuwo la isku dayay dagaal magaaladan in lagaga rido sidii aad uga hortagteen.
waad ku dhaawacanteen, waad ku dhimateen, waad ku dhaqaale seegteen. ilaahay agtiisa wax weyn baa kaga xisaaban. waxaan idinka codsanaynaa insha Allah tacaala shaqada inaad joogteysaan, niyaddana aad wanaagsataan oo aad ilaahay agtiisa ajir aad kaga rajaysaan. dhammaan ganacsatada iyo mas'uuliyiinta ku dhaqan gobolkan waxaanu ka codsanaynaa inay soo garab istaagaan ciidanka lana shaqeeyaan. si gaar ah dhalinyarada waxaan leenahay ka soo baxa doorkiina oo ka qayb qaata waxa weeye baahiyaha iyo waxyaalaha u baahan yihiin ciidanku si ay shaqadooda ay ugu gutaan si waafiya. waxaan u mahad celinayaa taliyayaasha ciidanka xasilinta gobolka Mudug noocyadooda kala duwan. waa uga mahad celinaynaa inay 24 saac dhaxantaas iyo kulaylkaas isaaran ay ka shaqo u taagan yihiin inay ka shaqeeyaan xasilinta gobolka Mudug oo beela isdiriray iyo dad khilaaf wada iyo dad dhibaato ka shaqeynaya iyo la dagaalan argagixisada ay ku jiraan. mahad celin kadib awoodeena iyo karaankeenan meeshan keenay ujeedkan u keenana ma aha inaan maartay isku tustusayna waxa weeye waxaan la qaybsanaynaa dareenka ciidanka halka fadhiya ay maalin dheeli la taagan bagcadaas cad qabowga iyo kulaylka ayaan rabnaa inaan la qaadano dareenkaas la kala qayb qaadano. runtiina waxa weeye qofka ka shaqeeya wax wanaagsan hadduu soo helin qof kale oo bulshadiisa oo yiraahdo waa mahadsantahay ma sii dhiiran karo. marka waxaan halkan soo istaagnay inaan dhiraano ciidanka shaqada ay ku jiraan waa ku mahadsantiin waana in ku ognaa waana kaga mahad celinayna. ujeedku intaas oo ahaa dadka degan gobolka Mudug qaasatan Gaalkacyo waan uga mahad celinayaa dhacdooyinka habeenkii dhow dhacay sida ay uga fal celiyeen ee wanaagsanaayo aan xanafta ku jirin. waxaan oran karnaa dad wacyi galsan oo fahmay nabadda qiimaheeda ayaa gobolka degan. ciidanka iyo bulshada ka shaqeysa arrimaha nabadda runtii dad weeye Soomaaliyeed waxa mar walba loo taagan yahay in islaax iyo wanaag laga dhex sameeyo. waxa u baahan marka dhalinyaradu kuwa dagaalada runtii ku waxyeelooba waa iyaga. adduunku maanta wuxuu ku dagaalamayaa waxa la yiraahdo artificial intelligence, yacni in teknolojiyada lagu dagaalamo innaguna meel cidla ah oo wax laga soo saari kara aan la arag baan isku haysanaa. sida daraadeed dayaca ama ciidan lagu gurmanayo dadka runtii badaya waa dadkii dalkan hor u mari lahaa. waxaan rabaa marka baaqaan inaan u diro war kuwa yacni ku mashquulsan dagaalada inay dhinaca wanaaga u hormarsadaan. taliye ku-xigeenka ciidanka xasilinta gobolka Mudug taliye Cabdifataax oo la wareegay deeqdan ayaa uga mahad celiyay madasha nabad iyo horumarinta gobolka Mudug asagoona sheegay in mar walba ay u taagan yihiin ilaalinta amniga iyo xasiloonida bulshada gobolka. waan kaga mahad celinaynaa booqashadiina iyo waxa aad noo keenteen oo aad aan ugu baahnayn. idinku waxa sheegteen inay wax yar yihiin laakiin baahida qofka u qaba wax yar lama ah, wax weyn bay u tahay. aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa. annaguna sida aad u sheegteen diyaar baan u nahay inaan u shaqeyno dalkan, waana naloo wakiisha. nasiib baan u yeelanay annagoo u dhalanay in waliba mas'uuliyadna kaga saaro leeyahay u shaqeeyay dadkiina iyo deegaankiina. ilaahay baan uga mahad celinaynaa. waa ku guuleysanay. intii aan shaqada haynay 3 askari baan nooga dhimatay. waana ku talagalnay in intay in ka badan ku dhimato nabadgelyada. maxaa yeelay hal maalin oo dagaal qabiil dhaca waxa ku dhimata 20 ama 30 ama 40 ilaa 2017 iyo xilligan 3 askari oo ah markii dad maalin kasta taagan meel xabad ka dhacaysa waxa moodaa inay aad u yar tahay. inta noolna diyaar bay u tahay inay u dhimato nabad. waana loo wakiishay shaqadoodana ah